حقيقة degmada cadale waxaa maanta ka soo ziyaaday dagaal beeleed horeyna uu jiray xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa waa dagaal foolxumo ah intaan taas u gelin waxaan rabaa horta awalan inaan u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay labada dhinacba inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kuwii ku dhaawacmana waxaan leenahay ilaahay maaragta ha u booga dhayo xaqiiqatan waa dagaal foolxumo ah waana ka xunnahay xaqiiqatan dagaalkaas والله حقيقة waxaan dhihi karaa waa wax kale sabab ma waxaan dhihi karnaa waa uun shayaadiin iyo shaydaan wax sabab u yahay awalan mar walbana waa ku baaqno in badan oo kamid ah in dagaalkaas uu joogsado in ummaddu isu timaado in wax garadku isu yimaado siyaasiyiinta isu timaado culimada waa waxaan ka shaqeynayna mar walbay ahayd laakiin waxaan ka xunnahay inuu intaas soo jeer soo noqnoqday walina xaqiiqatan kama quusan in dagaalkaas la joojiyo dadkaas walaalaha ah ehelka ah abtiga adeerka diris wanaagu ka dhexeeyey intaasoo yacni qarni ahay dad walaalo ehel ah laakiin ilaahay mataqaanaa uu yacni dhexdooda dagaalkaas ka dhacay walina mataqaanaa annaga waxaan ku baaqaynaa ka siyaasi ahaan in dagaalka la joojiyo soomaalidu waxay tidhahdaa dagaal wiilkuma dhasho ee wiila ku dhinto waana aragna faa'iidada iyo waxa ka soo baxay iyo maaragtay waxa jawaab celinta ay noqotay marka waxaan leenahay mar walba ka siyaasi ahaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale dagaalka hala joojiyo nabadda ha la qaato dadku ha isu tanaasulaano dadku ha fiiriyaan ehelnimada waxa ka dhexeeyo inay yihiin dad dirisa wax badan u dhexeeyaan taasaan aad ugu baaqayna insha allahu tacaala waana ku celcelinayna xaqiiqatan taas wallaahi waa dhacday in mataqaanaa gogolo badan la dhigay inkastoo heshiis saxa uusan dhicin laakiin intii gogasha dhigta xaqiiqatan horta waa dadaashaan dhihi karnaa walow la rabay in laga sii dhaqaajiyey meeshaas oo dadkii yani isu geeyey sidaad ogtihiin degmada cadale bilo ka hor waxaa ka dhacay heshiis hordhacahay heshiiska waxaa la gaaray in qodobo dhowra lasoo saaray ee layiri qodobadaas tixraaxa lagu sameeyo laakiin dowladda hirshabelle oo aniga aan ka ahay iyo xildhibaanada kaleba lama sii dhaqaajin taasna waxay keentay in oo yani ay keentay in oo dagaalka u mar labaad sii bilowdo waxay ahayd in mataqaanaa dadka laysu yeero qodobadii asaasiga ah ee la dhigtayna lagu sameeyo xarago lagu sameeyo lasii dhaqaajiyo la tixraaco la yiraahdo maxaa mataqaanaa ka qaban karnaa haddana mataqaanaa kama quusan xaqiiqatan laa taqnaduu min raxmatillaah waxaan leenahay dowladda hirshabelle oo hurmuudka u yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka xildhibaanada kale ee maaragtay hirshabelle dhammaantood khaasatan xildhibaanada ka soo jeedo gobolka shabeellada dhexe waliba si toosa inay arrinta uga qayb qaataan arrintaas loo gurmadaan soo jeedinaynaa lagu dadaala dadkaas si aysan mataqaanaa mar dambe u soo naqanin dagaalkaas oo laga fikiro inuu dhammaado maxaa dadku waa dad ehela dad abriyaha jooga dad masaakiinaha jooga dad birmigeedaha joogta oon dagaal mataqaanaa u habboonayn inuu dushooda ka dhaco waa soo naqnaqday balse waxaan leenahay yaysan dhicin mar dambo inuu dagaalkaas soo noqdo weliba kaalinta culamo diinka ay ku leedahay arrintaas mataqaanaa kaalin weyn ha iska saartaan leenaha oo khudabada ha ku soo qaataan xataa cala alaqal inay dadkaas wacyi geliyaan ay towciya u sameeyaan si dadka ay uga yacni waantoobaan dagaalka ay hamuunta u qabaan dagaalka u aragna dhibaatadiisa iyo faa'iida darradiisa marka waxaan aad ugu celcelinaynaa in dagaalka la joojiyo maslaxada la qaato wanaagga la qaato dagaalka oo aragnay maanta ugu dambaysay dhimashaa dhacday dhaawacaa dhacay dhibaataa dhacday hadduu sii socdana dhibaatadu intaas waa ka badanaya marka waxaan soo jeedinaynaa dagaalka la joojiyo cid kastee ka mida labada qolo xaqiiqatan labada qoloba waa dad ehelo ah walaalo ah kala fogeyn yacni abtiyaysin isu ah seedi isu ah wax walba isu ah beertu iyo jirjirka isu saarayaan marka dagaalkaas shaydaana sababaan leenahay mar kale dagaalkana sidii lagu baaji karo ha lagu baajiyo cid walba oo ka qayb qaadan kartana waa soo dhaweynaynaa xaqiiqatan oo dagaalkaas jooji karto xaqiiqatan dadkii militariga ahay taliyaashii militariga ee meesha joogay waa inay soo baxeen waa maqlay laakiin xaqiiqada oo saxda ma hayo waa macquul in mataqaana ay awoodi waayeen
inay mataqaana sii joogaan wax walba waa suurtagal balse xog dhaba ah kama hayno kolley dadaal badan ay bixiyeen iyagana waana bixinayaan in oo yani ay suurtagal naqaweysay inay meesha sii joogaan waa suurtagal laakiin dadaalkoodii ma reebana welina sidaan maqlay waa ku dambeeyaan waxa ay u joogaan ama dowladda dhexe ay u geysana waxay ahayd inay baajiyaan ay kala dhex galaan kolley haddana mataqaana waa filaa in mataqaana taliyaashii meesha la geeyey hawshooda ay qabsan doonaan arrinta yartoo dhacdana waxaan ilaahay ka baryaynaa inaysan soo naqanin dagaalkana dhaqsi loo joojiyo caqliguna soo noqdo oo mataqaana aan xabaddu iyo qoriga uusan taline caqliga uu taliyo bismi illaahi raxmaani raxiim waxaa mahad iskale ilaahi weyne waaxida oo maanta halkan nagu soo wada kulmiyey intaas kadib runtii magacayga waa maxamed xuseen mooge xildhibaanna u ah deegaanka cadale iyo warshiikh iyo deegaano kaleba runtii waxaan rabaa inaan laba kelmood aan ka dhaho marka hore waxaan ugu mahad celinayaa dalsan oo mar walba wixii akhbaaraha cusub inay degdeg u gaarsiisa jecel dadweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan intaas kadib waa jirtaa in maanta oo dagaal oo ka soo cusboonaaday deegaanka cadale gaar ahaan tuulada burdheere oo ah runtii mid dhibaatadeeda ay soo jirtay 2 sano iyo wax la jiraan oo hadda la soo dhaafeen halkaana maanta waxaa u imaday inaan baaq aan u soo jeediyo dhammaan beelahaasi oo walaalaha ah oo maanta dagaal ka soo cusboonaada dhexdooda runtii waxaan leeyahay dagaal dhib maahane wax kale uu keenayo oo faa'iido ah ma jirto dagaalkaasna waxaan rajaynayaa in degdeg ay beelahaasi ugu waantoobaan ayna joojiyaan wixii dhaqdhaqaaq ah oo farka hadal ah si loogu turo dhammaan dadka birmageedada ah dadka aan waxba galabsano caruurta iyo haweenka ah in ay u turaan ayagana isku turaan deegaankana u turaan in degdegna u joojiyaan farka hadalkaasi aad iyo aad madaxda hirshabel ugu sarreysa arrinta ma kala hadasheen ilaa hadda bismi illaahi raxmaan raxiim haa shalayto markuu arrintan ay soo cusboonaatay runtii arrintan waxay dib ugu soo cusboonaatay waxay tahay in deegaankaasi oo marka hore ay ku sugnaayeen ciidamo ka yimaadeen federaalka oo runtii oo horkaca general tradition iyo dhammaan horanada iyo dhammaan inta dadka madaxdiisa kale ay joogeen kuwaas oo la hadleen labada beeloodba hore ula hadleen runtii ayagoo joogaan ayaa marka hadda waxay dhacaysaa shaqaaqadan ay dhacaysaa taas markay bilaabatay waxaan kala hadlay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle wasiir waxaan fariin u diray madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle waxaan si toos aan ula hadlay wasiirka oo arrimaha gudaha iyo nabadeynta hirshabelle waxaan la hadlay dad kaloo badan arrintan ay khuseyso oo qaarkoodna fariimo markii aan saleeli weyne fariina aan u diray dhammaan waa gaarsiiyey waana ogyihiin in arrintan dib u soo cusboonaatay aad iyo aad ilaa hadda marka maxaa khasaaro ka dhashay dagaalka cadale ka dhacay wallahi runtii khasaarooyin way jiraan oo hadda dhibaatooyinkeeda la taaban karo balse intaas waaye iyo intaas waa hadda ma dhihi karo wax kalena ma ahane arrinta waa mid dhibaato aan la soo koobi karin leh maadaama meesha ay joogaan dad badan oo maati ah dad badan oo birmageeda ah ay joogaan runtii waxaan rajaynaynaa in arrintaas la daba qabto sideedababa see wax u dhaceen lama yidhaha laakiin see wax loo xaliyaa marka waxaa laga rabaa dowladda federaalka ah oo gaar ahaan ciidanka halka oo ka jooga hadda in ku dadaasho ciidankaasi inuu dib ugu noqdo howlihiisa oo qabsado howshii oo meesha oo u tegey oo nabadeynta ay ahayday dhammaan intii kalena waxaan ugu baaqaynaa oo wax ka geysan karta intii wax ka geysan karta nabadeyntaasi oo wax ka qaban karta inay wax ka qabato si loo joojiyo dagaalkaas hadda socda sideedababa dagaal wuu imaanayaa laakiin in laga daba tago oo la nabadeeyo nabadeynta hadda ayay tahay mid hor leh wixii horeo nabadeen ahaa waa la waday natiijadeeda weli aydoon soo bixin ayaa haddana hadda arkooyeynaa dhibaatada inay taagan tahay marka waxaan rabnaa oo baaqayga wuxuu ku wajahan yahay nabadeynta hadda ayay bilaaw tahay hadda ayay hor leedahay
haddii ahaan laheed cid walba cidda wax ka geysan karta si gaar ah federaalka maadaama hadda ciidankiisi meesha ku sugan yahay in degdeg ay u dhex galaan degdeg u kala dhex istaagaan dagaalkaas la joojiyo dagaalkaas haddii la joojiyo kadibna in loo fadhiisto gogol rasmi ah loo fadhiisto dadkii la isku keeno dadkii waxay kala tabanayaan isla meeshaas loogu dhameeyo hadduu alla yidhaahdo anagana diyaar waxauna inaan ka qayb qaadano runtii dagaalka waxa la isku hayo waa wax soo jireen ah waaye oo runtii dagaalka hadda kow ma aha wax soo jireen ah waaye oo muddo dheer soo jiray haddii aan dib aan u noqdo dagaalka aasaaskiisa wuxuu ku salaysan yahay sohdin dhuleed maa dhul la isku hayo ayuu ku salaysan yahay haddii oo arrintaas laga soo tago iyadoo taas jirta kadib ay haddana waxaa jirta in dhowr jeer laysku soo noqnoqday dagaalkan oo noqday mid soo noqnoqdo oo noqday dagaalkan markuu soo noqnoqday waxaa laga gaaray wada hadallo ayaa loogu qabtay jowhar wada hadallo ayaa loogu qabtay cadale intaasba waxay ahaayeen dadaal hadal kale ayaa haddana federaalka iyo maamulkii iyo dhammaan inta ay khuseysa haddana la yeeshay oo federaalka ah ciidana la geeyey meeshii ciidankii la geeyo oo jooga maanta ayuu dagaalkaas socdaa marka taas waa tan hadda aan leenahay ciidankaasi war hala qabto hala joojiyo dagaalkii kadibna ha loo fadhiisto hana la hagaajiyo dagaalkan asalkiisa waxa uu yahay asalkiisa haddii la hagaajiyo waxaan hubaa inaan soo noqnoqon doonin laakiin haddii asalkii aan la hagaajinin soo noqonoshadu way jiraysaa laakiin hadda asalka uma jeedno waxaan u jeednaa in la joojiyo xabadda cid walbana deegaanka ay degan tahay ku sugnaato les nabadeeyo